agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland ayaa maanta daafuray kulan lagaga hadlayay isla mar ahaantaasina lagaga doodayay dhismaha madxafka uu qaranka Soomaaliland yeelan doono oo ay dhisayso madaxtooyada Soomaaliland waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex siyaasiyiin haween iyo marti sharaf kale siminaarkaasi waxa ka hadlay ugu horeyn maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne waxaana uu sheegay waxyaalaha kaga aadan madxafkani ismiyaasha injineerada xildhibaanada gudoomiyaasha dhammaan mas'uuliyiinta waaweyn halkan ka soo qayb galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta waxaanu isugu nimi shir ama kulan hawleed dhismaha masxafka caasimadda Hargeysa sidoo ekaanaya sideedu ka dhigtaan marka waxaanu isugu yeernay dad kamida labeentii Hargeysa ama dad aqoon-yahanaa oo uu noqonayo kii koowaad oo mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad ay ka dambeeyaan waxa aanu si dhaba la tashi ula yeelanay dadweynihii ku noolaa caasimadda Hargeysa qaar kamida waxa maanta halka ka soo baxay fikrado fara badan oo oranaya sidii wax loo wada dhisi lahaa ama wax loo wada yeelan lahaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex waxaana hadaladiisi kamid ahaa museumka la sameeyo laga sameeyo khayriyadii goobta laga sameeyo oo ah goob taariikhiya runtii dunida ama ummad waxa lagu gartaa oo taariikhdeeda ummad lagu soo jiidataa ummadaha kale waxa weeye meel goobahaasi waa museumska kamida bulshooyinkii iyo systemkii ay ummaddeena u noolayd iyada lamida inaynu iyada taalaftigeena aynu ururino taariikhda ururinteedu waxay keenaysaa inay soo jiidato bulshooyinka kale inay soo jiidato Soomaaliland waxyaalaha baadisooc gaar u leedahay taariikhday u leedahay in ay runtii bulshada dunida ogaato in ninka qofka reer Soomaaliland u dhashay uu ku faano Soomaaliland ku faano taariikhdiisa uu barto gabagabadii waxaa soo afmeeray kulankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile isagoo la dardaarmay ka soo qaybgalayaashii kulankani kana sheekeeyay muhiimadda uu leeyahay madxafku waxa uu daaran yahay in maskaxaha la wadaago in fikirka la wadaago waxaan isugu keenay ugu yaraan 5 shakhsi iyo shirkadood oo injineer architect oo ku takhasusay sida magaalooyinka hore loogu mariyo waxaan isugu keenay dad social scientists ama aqoonta culumta bulshada yaqaana dadkan oo dhan waxaan isugu keenay si loo sameeyo museumka bal fikir aynu isku darro dad ilaa 32 qof ayaa ka soo qayb galay qof walbaana waxa uu soo jeediyay fikir wanaagsan oo magaaladii hore loogu marinayo waxyaalaha gaarka ee ka soo baxay Kasakow madxafka ama museumka Kasakow waxyaalaha ka soo baxay shirkan waxa ugu muhiimsanaa waxa laga wada hadlay horumarinta magaalada sidii magaalada hore loogu marin lahaa waayo museum ma aha khayriyada la dhisayo ma aha waxa weeye magaalada oo dhan sida hore loogu mariyaa khayriyada agagaarkeeda sida hore loogu mariyaa wadooyinka sida hore loogu mariyaa dadkan wadada ku ganacsanaya sida hore loogu mariyaa jidadka sida loo dhisaa waxyaalaha aan maanta anigu ku farxay ee shirkan aan ka arkay ama ka soo baxay waxa kamid ah Soomaaliland inay leedahay aqoon badan oo huruda